waxaa i farxad geliyo qofka aan jeclahay markaan arko aada u farxaa waxay farxad gelinaa nafteeda iyo bulshada wax ku soo kordhiyo wax bulshada intifaacsan karaan oo faa'iido u leh anigana sidoo kale nafteeda faa'iido leh oo aan ka heli karo magac iyo sharaf iyo dhaqaalaba ilaahayna uu raali ka yahay taas ay farxad gelisa horumar nafsadeyda ah markii aan gaaro ka shakhsi ahaan ama markaas dadaal fara badan aan soo waday ama ii sheeg wax aan soo baranayay markii aan ka guul gaaro oo aan horumar la taaban kara gaaro shay ugu weyn oo aad aan u farxo horta shaygaas waaye ani ahaan waxa ay farxad geliya saddex shay bay farxad gelisa inkastoo qofka bilaadanka waxyaabaha farxad geliya ay kala duwan yihiin qofba ay wax farxad geliyaan haddana aniga saddex shay bay farxad gelisa midda koowaad waa caafimaadka ilaahay baan ugu mahadiyaa tan labaadna waa guusha waxaan jeclahay wax walba oo qabanaya inaan ku guuleysto farxadda ugu weyn ee aan jeclahay waa midaas nolosha inaan heer ka gaaro waxbarashadaas aan ku dadaalo oo taamna sii qasaarno jaamacadeedana aan gabi mar walba farxadeedu waa intaas aan noloshana heer ka gaaro ta saddexaad waxay tahay oo ayadana la marmaarka ah ama aan la ilaawi karin waa lacagta lacagtu waa furaha nolosha inta badan markaad lacag haysato waxyaabo badan aad furdaami kartaa marka lacagtana way iga farxisaa oo waxyaabaha ugu badan aan ku dhoola cadeeyo sidoo kale bisha Ramadaan aad iyo aad bay farxad gelisaa